markaan waxaan soo qaadanaa saaxiibayaal team qiyaamad 2003 soo bixi qiyaamad Ajay Devgan sameeyay almost hadda 22 sano ka soo wareey shaqada filimka markay socotay ayaa teamka qaarkood la wareystay wareysi xiisa badnaa Ajay Devgan wareysiga kuma jira laakiin waxa ka soo muuqdeen waaweyn sida Sunil Shetty Arbas Khan gabadhii ahayd dabcan Isha Kobikar Jackie Bande ka soo muuqday iyo Grace Sin oo filimka markii hore ku jirtay muuqaalka qaybaha dambe kaga sheekaysan doona sababta Grace Sin filimkan kaga baxday hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan Zaki Media kusoo dhawaa bartaan YouTube ka asaga baashaanla muuqaalka subscribe noo saar aqyaarta joogtada noogu xiran dabcan noo like reeya qiyaamad 2003 soo baxay wuxuu ahaa filim guuleystay laakiin xilligaas akshamada lagu soo bandhigay caadi ma ahan Ajay akshamada uu sameeyay Sunil Shetty wadaniyadii ka muuqatay labadii faraq ee walaalaha laadariinta ah Arbas Khan iyo Saujina Sanjay Kapoor xasuusan caadi ah waaye Jackie Bande laadanimadii shactirada ee ku jirtay Isha Kobikar oo qamarji ahayd wuxuu ahaa Finland caadi ahaan saaxiibada qiimaha badan Hari Bawaja director-ka ah wuxuuna ahaa filimkii saddexaad uu Hari u sameeyay Ajay Devgan hore wuxuu ugu sameeyay hadaan qaldaneen Dilwale uu sameeyay sidoo kale wuxuu u sameeyay Diljale waa laba filim oo classic ah iyo qiyaamada uu sameeyay filmo dhulkaan aan dhicin uu sameeyay haddaba teamka marka wareysiga laga qaado waxa ugu horeeyo kale Sunil Shetty oo kale oo dabcan sadka jooga asoo Ajay Devgan muuqaal jilay kadib Sunil Shetty wuxuu sheegay in qiyaamad uu ku matalay askari doorkan Hari Bawaja markuu soo bandhigay uu ka helay soo kalena wuxuu sheegay romantic angle uu leeyahay jacayl laakiin waa laga jaray dhinaca jacaylka sababtoo Raveena Tondana lamaantu ku matalay heesu la qaaday sheeko jacayl lahay waqtiga filimka oo la soo gaabiyay awgeed Raveena dhanba hawada lagu cunay saaxiibayaal iyo strike history jacaylka Sunil Shetty la wadaagay markuu wuxuu dhaxan ku matalay askari wadani mayl adag sidoo kale tan rabo halista wadanka ku jirta marka badbaadiyo Ajay oo xaalad ahaan aan wanaagsaneyn soo wadaaya missionka dabcan soo kala qayb qaatay filimku waa daawan ka sheekay mar laakiin wuxuu leeyahay doorka ama talay door wuxuu ahaa si gaar ah soo jiitay Hari Bawaja iyo bandhig anigana aan ka helay waana ka warqabnaa Sunil Shetty doorkiisa caawinimo iyo askariga maylka adag xitaa sabca ruux amal makulaal aan dhibarin maanta aan sanadana inuu ahaa door aad loogu amaanay supporter wax xitaa u tartamo oo inkastoo uusan ku guuleysan sidoo kale Sunil wuxuu sheegay noocan filimka technology wise inuu aad u diyaarsan yahay dabcan wuxuu dhahay akshamaan caadina ayaa lagu soo bandhigay xilligaasna akshamada lagu soo bandhigay CGI graphics la adeegsaday inaba caadi ma ahan qiyaamadna waa remix aan ka warqabno sheeka ahaan laga soo min guuriyay filimkii The Rock oo Nicolas Cage hogaamiyay ka 96 soo baxo adi oo koobi laga dhigo heesa lagu dardaro ahay dhinaca kale tan Sunil wuxuu sheegay dabcan filimkan teamku isugu imaadeen ensemble kasta in isugu kana jilayaal waaweyn oo miisaanka culus oo saaxiibo ah Arbas iyo hadii online Sanjay Kapoor Jackie Bande Ajay wuxuu dharag waaweyn isugu imaadeen sadka wuxuu sad aan ugu caadiseen uu ka dhawaajiyay aadan ugu raaxaysto shaqada filimkan ka qabtay waxaan rajeynayaa ka doorkiga daawadaashan ay heli doonaan filimkan ay soo dhaweyn doonaan tiya dhacday qiyaamad xitaa markaas record opening ku furmay inkastoo gadaal hoos u dhac uu ka sameeyay dadka ogaadeen sheekadiis inay tahay filimkii Amerikaanka koobiga ah laakiin sida waalida toddobaadkood u gadmaa ku filnaatay filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleysto average ah ilaa hadda heesii ku jiraan lama ilooban saaxiibayaal akshamadii Ajay uu sameeyay Sanjay Kapoor iyo dabcan si uu ahaan laba dhib badan iyo Arshad Warsi dhibaatada ay sameeyay aaraadeen Arbas Khan waxay jilaan caadi ma ahan kadib waxaa la wareystay ninkii ahaa soo qaadano Arbas Khan oo filimku wuxuu waxaan ku jilayaa laadaran ku jira laakiin laadar wuxuu stylish xaraka badan waana xaqiiqo wali wuxuu dhahay Hari Bawaja wuxuu ballan qaaday filimkan hadda sameey in daawadayaasha ay la yaabi doonaan laadarnimada aan ku matala tiya dhacday filimka marka daawanaysid qiyaamad Sanjay Kapoor Arbas Khan waxay sameeyaan aqliga aaraada Sanjay Kapoor iyo Arbas Khan waxay sameeyaan aqliga ma galaan laba walaalo ah farq ah dhib badan laadarnimada waxba aan ka nixin gantaalka waa taabanana ku shacabka dhibaatada u geysanayaan Arbas Khan filimkaas soo kaga baxay Sanjay Kapoor chemistry ka dhaxay isfahankooda inaba caadi ma ahan waajilan wallahi dirunta laga hadlay qiyaamad hogaamiyaasha markii laga soo tagay labadaas laadar filimka si cusbada ugu yeelan unbelievable waliba Arbas Khan si gaar ah Sanjay Kapoorna kama liidanin wuxuu ahaa marka film dirunta aniga runtan ka hadlay qiyaamad marka daawatid dadka maskaxdaada ku jira noqonayaan oo ku haysan doonaan laba walaalo ah dhib badan oo waliba la soo diray hindi inay babaashaan rabaan caadi ma soo jiraan qiyaamad City and Thread waxa waa labadaas filimka cusub weyn u yeelan Arbas Khan iyo dirunta laga hadlay Sanjay Kapoor maba kala harin filimka si u jiraan alle waa ka baxsan qofkan daawan nostalgic xasuus dadkii daawadana fahmi karaan xasuusa galeysla qofkii aan daawan qiyaamad raadso soo daawo Ajay Devgan kaliya uma daawanin Sunil Shetty labada laadar filimka cusbada u yeelan inaba caadi ma saaxiibayaal sidoo kale waxa dabcan uu sheegay Arbas Khan ku faraxsan la shaqeynta Ajay Devgan Sunil Shetty wuxuu laba wal experience la shaqeynaa u dhahay Hari Bawaja director weyn isku haleen karo projectkan wuxuu dhahay marka safe waxa waa film aan hubo inuu dabcan guuleysana tiyana dhacday qof kasta mashruuc ugu kalsoona ayaa natiijada noqotay saaxiibayaal sidoo kale waxa hadlay Jackie Bande oo filimka dabcan ku jira aakhir baaste
sagaashamaadkii dhamaadkeeda uu ka tagay dabcan dhankaas iyo hindi dhan waa ka tagay Bangladesh iska aado Bollywood waaba ka baxay ninkaaneeto awal sano Dollfishwood ma la sameeyay Govinda wuxuu film la sameeyay inna bacaadan aan qayn oo kaleeto Anil Kapoor wuxuu la sameeyay dabcan Teza filmo badan oo classic uu sameeyay hogaamiye kaligiis uu noqon laakiin supporting role wuxuu ahay filmka macaaneeyo oo door kasta qaato uu ahaa qurux badan oo ninkaan stylish ah Jackie Bande kadib waa iska tagay wuxuu aaday dhankaasi Bangladesh superstar ka noqday almost 4 sano 6 sano Bangladesh ku maqnaay filmku ku soo laabtay markuu wuxuu ahaa qiyaamad new face la soo galay marka Jackie Bande asoo laadarinta la socdo Arbaaz Khan la socdo san ka warqabna daacasuustiin iyo Sanjay Kapoor ayuu haddana soo u shactirinaya caadi ma shactiro oo laadar shactirinaya caadi ah oo marka doorkii wuxuu dhigay door waxa waa negative role laakiin comic timing aan caadi ahayn tii aan dhacday odaga markuu soo laabtay aakhir baast waxa laga maarmo sii joog markaas uu bulad u soo laabtay kadib wuxuu noqday shactirin uu matala ilaa markii dambe 2010 taxana house film uu qabsaday aakhir baast doorkiisa caan uu noqday marka Jackie Bande waa film ku soo laabtay sidoo kalena uu sheegay qaabku u jilaa laadarnimo oo negative inuu qaadana asiga uu noqon doono dadkii ay cabsi ku jiraan marka dadka filmka daawanaya ka qoslisiin doon waana xaqiiqo marka qiyaamad daawanaysid waxyaabo u daawanaysid ka mid tahay dabcan Jackie Bande isuu u shactirinayo waxa kale hadashay Isha Kobikar oo sheegtay filmka inay ku matalaysa negative role sidoo kale waxay sheegtay wax badan inaan ka hadla mar laakiin waxay dhahday labada walaalaha ee filmka Sanjay Kapoor Arbaaz Khan u dhaxeeya jaceelkooda ahay waana filmka markii la daawanay xaqiiqana waa sababta ay gabadhan waxay ku matalaysaa labadan walaalaha isla jecel filmka waa laba faraq oo waxaan caadi ah tan ka darantahay laadar matalaysay marka wax badan ina sheegay mar laakiin doorka la isoo bandhigay door negative waa labadan walaalaha aan ka dhaxeeyo waana waa daawadaasha inay kala doonaan xaqiiqo gabadhan door impactful ku leeyahay filmka saameynteeda way muuqatay sidoo kale tan waxay tiraahdaa in la shaqeeyo jilayaasha waa aragga sida Ajay iyo Sunil Shetty wax badan ka bartay ka dhaw xitaa waxay tiraahdaa Raveena Tondana film ku jirto Mrs Raveena waxay tiraahdaa waxbaan ka bartay laakiin Raveena waxay kugu taalaa filmka heeska ay ku lahayd iyo jaceelkii sheekada xasuusta ee Sunil Shetty la lahayd intaba directorka ka jar wuxuu waqtigan ugu dheer Raveena waa raalli ah wala sidii lagu cuno marka doorkeeda waxa kale oo dabcan fahlashay oo wareysiga qaybkii aad markii aan wareysiga daawanay ku argay gabadha lagu magacaabo Grace Sin gabadhan lagaani ku soo baxay markaan la sameeyay filmkii Hiidka gabar qurux badan oo iska degan oo humble ah filmkeeda labaad oo qiyaamad ee saxiixatay waxay tiraahdaa xitaa door challenge ku matala marka hore waxay tiraahdaa gabar iska yaraan ku matala jaceelkeedii Ajay jeclaanayso nolol qurux badan waa qaadanayaan then saygeed ama saaxiibkeeda isweynayaan 5 sano kadib haddana dib isku arkayaan waxay tiraahdaa marka laba door bilcagsi marna waxay tiraahdaa farxadan haystaa marna 5 sano kadib murugan ku jira lamaankeyga ma haysti doorkaas aan jilaa dhaado aad ugu faraxsanahay dad way aragna la sameeyaan lagaan kadib waa filmkii labaad saxiixda shaqadiisa aan ku jiro sadka gabadha joogtay laakiin maxaa dhacay Grastin lagu waa filmka waxa lagu bedelaa dhaka warqabtay Neha Dubey lagu soo caanbixiyay filmka gabadha iyo quruxda soo qaadata lagu daray sababta Grastin ay kaga baxday xitaa inta kale filmka way jashay laakiin Harib Wajo waxa way director walba aragtay ilaa wuxuu roo filmka inuu gabadha ku gado jirkeeda ku gado raba Grastin waxa la dhahay bikini qaada alaab yaro labada yar labada hoos laga xirto soo qaada la xeebta imaanaysa waxay raalaha aniga waxaas basamay karniyo sheekada filmka waa kala shaqeeyay waa wata laakiin extra scene kan masameyn kari muuqaalkan dheeriga adiga aad dalbanaysay masameyn kari saas miyaha Foreign Jaro gabadha dhamaad filmka disho wax ka dishabo gabi ahaanba waaba laga saaray waxa lagu bedelay marka Neha Dubey gabar carcar ah qurux soo qaadatay fashion stylish waxaas waxba arkin dhisan socodha marka magaalka galo tan waa diray tan waa keena soo rabo ka yeesho wuxuu soo galshay bakiin laga gaaban soo galshay hada qiyaamada daawatana ku arkaysan Neha Dubey caadi ma wax ay wadata bakiiniga intaas wuxuu roo marka waxa sir dhalinyaro inuu soo jiitarabe ayuu gabadhan dabcan sameeyay Neha Dubey gabadhan waa aqbashay gabar cusub ee waxay rabtay magac raadis ee dharka dhigaal la waa dhigata marka waa jashtan waa iska diiday marka saasay Grassin filmkaas ku weysay laakiin dhibaato uma aragto sababto ee waxay sameeyay Munabaye kadib sameeyay Sindadu la sameeyay Munabaye lagu raho Munabaye ma ahaya Munabaye MBBS qaybtii ku 2003 ay sameeyay asigan Hiidka u ahay gabadhan inay xoogaa ma shidnaan shirkadaha Bollywood kan waxay u reebaan hadda ogaada waa gabar micnaha diidaneed inay atoorash ku dhacdo xoogaa wax sameeyso afaar sameeyso dharka dhigato waxaas Bollywood ku qasbaan directorada iyo producer aydan waa iska diiday marka ma soconka qof noocaas oo kale ma socon kara marka maalin walba film nadiif Munabaye kale lagaano kale ma helisid kuwa balaya jooga waxaan ku dhahay filma ku dhiibana saan sameeyo dharka gaaban gashay gaaban araan bakiini gashay u dhaaway waxa ugu liita labada hoos laga xirto wadada ku maraa u dhaay xeebta ku maraa dadka ku hormar waa iska did gabadha marka waxaas daata hal adiga ma soconin sidii marka fanka ka hartay gabadha lagu magacaabo Grassin Neha Dubey saasay ku carfatay filmka qiyaamad jirkeeda ku heshay taal Neha Dubey ku soo caanbaxdo lagu bartay heesaha ku jira filmkaasna oo larkii muhabbad iyo hees aan caadina ku jirin kumaarsan oo ka qaaday famous songs 2003 wuxuu ahaa albumka shanaad ee lagu daawasho badnaa oo ahaa Hindiya si aan caadi ah loo gatay muusigadiisa heesiisa hees hirgal ku jireen qiyaamad laakiin maxay kugu talaa heesa hirgal waxa lagu gaday
hoosgeliska gabadhan dabcan jirkeeda la soo qaabiyay tanna waa diiday tanna waa akhbar saasa difference u dhaxay marka Grace scene ay kaga baxday film ee shaqo qabatay ayaa waxay kaga baxday extra scenes loo baadal dhahay isqaawi ayadana waa diiday marka saasi ku weysay marka muuqaalkan waraysigii team qiyaamad ee baxshan intaas nooga igay I think ajay oo ka maqan waxa isleeyahay inta ba ka sheekeynaa xiisa badan odayaashii inta kale to camera isku qaata marka